runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta aan ka soo qayb galo kulankan loogu furayo tababarka saddexdii degmo ee u horreeyay ee nidaamka qof iyo cod ah ku soo baxa muddo 50 sano ka badan. waa marxalad taariikhi ah oo u baahan in la isdul istaago. runtii sharaf bay mudan yihiin dadkii kala duwanaa ee ka soo shaqeeyay inay hirgasho qodobka dastuuriga ah ee muddo badan dadka reer Puntland ay ku taameeyeen. waa tusaale cad oo maanta na hor yaalla oo hirgalay oo la arkay sida ay u suuroobi karto oo in badan dad badan oo xumo ka talisa oo horumarka Soomaaliyeed aan rabin ay mar walba baqdan gelin jireen in doorasho baahsan oo dadku u siman yahay la qabto iyagoo mar walba eegi karayay marxaladaas ay ku jireen inay iyagu dantooda ku jirto. waxyaabahaas waa waxyaabaha 50kii sano ee la soo dhaafay dalkeenu uu la degi laayahay. dhowr iyo 20 sano nidaam military ah oo aan ogolayn in la isdoorto iska daay in ra'yi la dhiibto ayaa soo marnay. Soomaaliya inteeda badnayd 30kii sano u dambeeyay ilaa hadda qaybtood deegaanada qaybtood waxay ku jiraan deganaansho la'aan iyo qalalaase. hadba qolo nooc cusub ah oo aan ogolayn inay dadku hadlaan ay hor joogtay. kuwii ugu darnaana hadda ay joogaan deegaanadaas meelo badan oo deegaanka Soomaaliya ka mid oo al-shabaab ah. waxaasoo dhan magacay rabaan iyo wajigay rabaan ha ku yimaadaan. ujeedada u weyn waxa weeye in talada dalkan ay baahdo. hadday taladu baahin waxaan mutaysan doonaa waxa hadda maanta aan haysanno oo ah burbur, fakhri, gaajo, cudurro iyo nolol la'aan. waxaan taagannahay inay quus naga qaadaan dadka Soomaaliya u soo gurman jiray oo beesha caalamka ah ilaa beesha caalamka baryadeedii habarta baadiyaha joogta xataa ay baratay markay maciin kale oo Soomaaliyeed ay bidda ay weysay. odaga iyo habarta maanta abaartu haysato markay af kala qaadaan cid ay u dhawaaqayaan waa beesha caalamka iyagoo ehelkoodii iyo walaalahood iyo kuwii waalidka u ahaayeen ay dhulka joogaan. runtii arrintaas waa arrin ceeb ku ah bulshada Soomaaliyeed oo u baahan marxalo in laga gudbo u baahan ah. qofka ku fakeraya inuu dan gaara helo oo ama uu xukun ku haysto ama uu xukun ku yimaado sidoo isaga iyo in ku xeeran kaliya u noolaato oo aan arkayn ummadda ballaaran ee badan. runtii waa ayaan darro u baahannahay inaan ka korno. waxaad arkaysaan doorashooyinkii ka dhacay saddexdaas degmo quruxda ay lahaayeen. dadka waayeelka ah, dadka tabarta yar inay danahoodii intay ugu yimaadeen 90 jiro habeen barkii markay salaada subax tukadeen inay faylkay galeen ay ka dhaqaaqeen qaybtood gabalka markuu dhacay. waxaad dareemaysaa humuumta ay u qabaan inay codkooda dhiibtaan. maxaa yeelay qofku marka uu talada wax ku leeyahay wuxuu helayaa kalsooni qofkaas uu talada u dhiibtay inuu dareemi karaayo inuu hawshaas uu ka soo baxay. filashadaas faraha badan waa dhici kartaa marka hore iyo marka labaadba sidii la rabay inaysan noqon. maxaa yeelay dabeecaddii shaqo ee dhulka ooli jirta weli waa joogtaa. in laga gudbo iyada naftirkeeda waqti kale u baahan tahay oo ah in dadka ay soo doorteen inay la xisaabtamaan inay muhiim tahay. runtii arrimahaas waxaan u baahannahay golayaasha cusub ee deegaanka ee hadda soo baxay. dabcan casharada
ay qaadan doonaan marka laga tago mas-uuliyadda saaran inay dareensan yihiin aad bay muhiim u tahay waxaan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa hadafkii laga lahaa doorasho dadku soo doortay oo hal nooc oo dad ah aysan soo doorin puntland golayaal bay lahaan jirtay marxalada deegaamada soomaaliya aysan lahayn ama hadda ay bilaabayaan oo hore uga soo gudubtaa jiray deegaanadaas qabaa'ilkaa soo dooran jiray hal nooc oo mujtamaca soomaaliyeed ayaa doorashadaa geli jiray oo odayaasha unbaa soo xuli jiray hadba qofka ay reerkaa u arkaan inuu munaasib yahay sababtay doonaan iyaga ha u xalliyaane maanta waxa aa ku timaadeen tartan dhex maray 9 urur 9 urur oo iyagu soo xushay iyagoo eegaya dhismaha bulshada qeybaheeda kala duwan iyo qofka ay u filayaan inuu hadafkooda siyaasadeed ay maanka ku hayaan inuu fulin karo deegaanka ugu yar saddexdan degmo midda ugu yar waxaa mathalaya ugu yaraan 4 urur dad ka soo baxay meelaha qaarkood 5 meelaha qaarkood 6 marka hal nooc oo dadka ah daday soo xuleen ma tihidiin dad aragti kala duwan ku yimid oo siyaasadeed fikirro kala duwan xambaarsan inkastoo fikirkeena siyaasiga oo weli kooban yahay oo bulshadeena iyo dhismaheeda iyo qabaa'ilka weli ay naga guuxayaan haddana in aad dareen u qaadid ururada ka mida inaad ka mid noqotid xubnihiisa iyada naftirkeeda waa horumar ka duwan horumaradii hore aan haysanay qodobka ugu muhiimsan oo aan kula dardaarmayo ururada halka jooga ee ka mid ah golayaasha deegaanka dardaarankay ugu horeeya waxa weeye ururadii aad ku soo baxdeen waa inaad ilaalisaan oodan eedin ama aydan dhaliilin madaxdii markaas inila shaqaynaysay hadday inaga gaabiyaan oo idinku hadda dadka ururka matalaya aada noqotaan oo dhismaha ururada ilaa laga gaarayo marxaladda xisbiyada aada waqti badan gelisaan ruuxaddii oo aydan noqonin dad uun ku raadsanaya inay golaha uga mid noqdaan taas inaysan noqon oo walaha ururka iyo ka shaqayntiisa iyo nidaamka aragti kala duwanaanta siyaasadeed inay noqoto wax hirgala oo bulshadeenna laga dhehdo intaan u kala qaybsan lahayn qabaa'il aan dhammaad lahayn waad ogtihiin qabaa'ilku dhammaad ma leh waa uu farcamay ilaa aan hadda niraahno baheble iyo baheble waxa weeye hal oday iyo carruurtiisii kala qaybiyey wey waa meesha ugu dambaysa oo kala qaybsanaanta la gaari karay marka waxaan u baahannahay noocaas ka duwan wayna inaga muuqataayoo waxaa degmada eyl ka soo baxay 2 nin oo walaala ah oo 2 xisbi ka kala tirsan oo waliba doorashadii u dambeysay oo hadda ka dhacaysay eyl ku kala aragti duwanaa waa horumar siyaasadeed oo xoog leh oo muujinaya bisaylka bulshada iyo meesha gaarsiisanta waxaa ku soo baxay degmada Qardho laba qof oo isqaba oo maaragtay tartamay ah isbedeladaas waxay muujinayaan horumarka bulshadan ay gaarto oo marna maskaxda bini aadamkii hore ee odayaasha qabiilka aan ku soo dhicin sinaba uma suuroobeyn iska daa 2 walaalo ah 2 isku jifi ah oo isku dhow xataa lama qaadani waad ogtihiinoo reeraha wax loo qaybinayo aragtiyo wax looma qaybinayo haddii aragti wax la qaybiyo dee walaaluhu 2 aragtiyood bay kala sitaan haddii reere la qaybiyo dee 2 walaalaha waa isku reer marka waxa aan rabno inaan ka korno oon ka kobocno waxa weeye kala qaybsanaanta aragtida in ay noqoto waxa bulshadan ay ku tartamayso aragtidaasna ay noqoto aragti wax dhisaysa oo bulshadan dhismaheeda ka qayb qaadanaysa meesha aan u soconno waa halkaas ma aha in qof la doorto qofna laga tago waxaan u soconnaa inay ka soo dhex baxaan aragtiyahaas kala duwan oo tartamay bulshadu u hesho waqti kee dantiina ku jirta markaasaa la garan karaa marka isbeddelka imaan kara haddii kaleeto wax lagu qiimeeyo ma jiri karaan puntland dabcan marxalado kala duwanay soo martay taariikhduna duugoobi mayso deegaanadan puntland hadda la baxay taariikh fac weyn
bay Soomaalida ku leeyihiin oo u baahan in la xuso oo ay dhici karto bararka qaarkood colaad aysan mutaysan inay ku helaan waad ogtihiin Puntland waxaa ku taalla xaruntii daraawiishta ee Taleex oo deegaanadii uu sayidka ka dhashay uu ka hirgelin waayey in uu cadowgii iyo isticmaalkii markaa jiray uu ka hor yimaado dadkan waxay ahaayeen dadkii hoostigareeyey oo la dareebay in ay tahay in cadowga la iska kiciyo waajib khaladaadkiisa iyo wanaagiisa waxaan xoog badan wanaagiisaan eegaynaa dadka qaybtiisa mararka qaarkood waa laga yaabaa dadkii tartanka kala dhaxeeyay marmar waa dhici kartaa inay khaladaadkiisa meeshan gareeyaan laakiin waa taariikh u baahan in la xuso oo lagu faano waxaad ogtihiin Suldaan Maxamuud Cali Shire markii Ingiriiska uu kari waayey in uu u sanduloobo waa muwaadinkii Soomaaliyeed u horeeyay oo siyaasiga oo la masaafuriyay oo Seychelles lagu xiray markii dambana ay garawsadeen Ingiriisku oo ay bilad siisay Queen Elizabeth hadda dhimatay waa taariikh u baahan in la ilaaliyo boqortooyadii baargaal fadhiday waad ogtihiin Talyaanigu markuu kari waayey waa meeshii ugu horeysay oo Soomaali iyo Afrikaanba ah ee ciidamo bad navy ay weerar ku soo qaadaan iyadoo tii Taleex ay ahayd ciidamadii meeshii ugu horeysay oo Afrika ee diyaarado lagu soo weeraray taariikhdaas ayay Puntland hoostigareynaysaa saldanadii Hobyo waad garanaysaan waa tii dhashay SYL waa tii dhashay xorriyadda Soomaaliya waa tii dhashay aragtida maanta Soomaaliya ay ku faanayso ilbaxnimadii xeebaha Hindiya waa kuwa dhisay oo ka qayb qaatay Muqdisho Marka Kismaayo iyo meelo badan oo Soomaaliya iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga ka hana qaaday Bay iyo Bakool taariikhdaas quruxda badan ee dadka Soomaaliyeed ay la wadaageen waxay hormuud u ahayd inay dadkani mar walba aragti dheer ay ku fakarayaan oo ah Soomaaliya oo caalamka la jaan qaada oo aan marna ka hooseyn ismihii Puntland wuxuu ahaa taariikh kaleeto oo u baahan in la xuso dowrkii ay ka qaateen ismadii markaa joogay oo runtii udub dhaxaad ay u ahaayeen Islaan Maxamed iyo Garaad Cabdiqani oo runtii saldhig u ahaa inay bulshadan ka guurto nidaamka kala qaybsanaanta ay markaa jiray iyagoo oo bulshada intooda badan ku wacyigelinayay inay nidaam dawlad dhistaan oo ka xoog badan kii markaa ay haysteen oo ururada siyaasiga ah ama ururada jabhaday ahaayeen ururo siyaasiya mararka qaarkood la dhihi jiray jabhado dagaalama ay ahayn dagaalka lagu gudbo oo deganaansho iyo maamul loo gudbo runtii taariikhda dhow dadka soo maray waxaa ka mid ah Cabdullaahi Yuusuf oo mar walba xorriyad iyo raadinayay xukun la wadaago xabsi u galay Soomaaliya xabsi u galay Ethiopia mararka qaarkood dadku u fasiri jireen in xukun uu raba taariikhda way proof gareysay inuu isagu xukunka waqtigiisu haray inuu iscasilo waxa uu raadinayay maaha wax naftiisa ah waxay ahayd wuxuu raadinayay sharafta iyo gobonimada dadkiisa Soomaaliyeed waxaan u baahannahay taariikhda la rabo in la duugo oo dadka qaarkiisa ee Soomaalida ay rabaan inay waji khaldan u abuuraan in runta laga sheegaan raba waxaas intaa ka sii daran in dad reer Puntland ay wadadaas mararka kala qaadaan iyagoo danahooda fiirsanaya dawladnimadooda dhaliilaya dantaas guud ee Soomaaliyeed aanan u jeedin inay Puntland hormuud ugu noqoto dadka nidaamka dimuqraadiga ee hana qaaday ka hor soo horjeeda ama diidan inay Puntland taariikh damo oo cusub ay samayso ogaada waa dad soo jireenkii taariikheed ee Puntland lahayd raba inay is hortaagaan oo ay burburiyaan waxaan u baahannahay inta halka fadhiday inta maqanba inay ilaashadaan taariikhdaas quruxda badan ilaaliyaan mustaqbalka ifaya saddexdan degmo wixii ka qabsoomay waa taariikh waxaan rabaa inaan halka cadeeyo degmada Eyl markaan halka joogno wax badan baa laga sheegay la isma rabo waa la seystaa laakiin waxa ay soo baxday
dadka deegaanka iyo golayaashooda dembiga ma ahayn, dad kale si kale ugu dhex jiray. muddadii aan joognay runtii waxaan kala kulannay weji ka duwan suuradda intaanan tegin laga sheegay. waxaan aada ugu bogaadinayaa inay halkaas joogaan dad ilbaxa garan kara xaaladda markaa jirta, duruuf kastoo timaadana in laga gudbo diyaar u ahaa. waan ku ammaanayaa runtii, waan uga mahadcelinayaa dadkii deganaa, ururadii siyaasadda oo si guud uga wada howlgalay sidii maanta quruxda aan haysanno inay u hirgasho aan uga wada shaqeyno, hadafkaasna aan wada xaqiijin. waxaan u baahannahay meeshaan inay ka soo baxaan fariimo culus oo ah in la helo golayaal ka turjumaya dareenka dadka. macnaheedu maaha markaa golayaashaan noqotaan in lasoo doorto wax kasta inaad awood u leedihiin inaad qabataan, maxaa yeelay marxaladda dalkeenna ku marayo ayaan ahayn marxalad wax walba qofku uu qaban karo heer kasta ha jooga. laakiin marxaladda uguna yar uguna weyn aad qaban kartaan waxa weeye inaad matali kartaan mujtamaciin dareenkiisa, doonistiisa. waxa u baahan yahay in la gaaro waa arrin kale, laakiin inaad matali kartaan dadka aad matalaysaan waxa ay doonayaan inaad meel walba aad kaga garaacdaan. waxaan rabaa hay-aduhuna oo ay maqlayaan saddexdaa degmo il gaara in loo sameeyo oo dareenkooda la dhagaysto, iyada iyo wasaaradda arrimaha gudahaba iyo wasaaradaha kaleetaba si dhow loola qabto waxa ay rabaan inay qabsadaan markii awooddooda waxqabad la arko. daadejinta maamulka waxaan rajaynayaa meelaha ugu horreeya lagu practice gareeya inay noqdaan si practical ah, intii loo dejiyey inta ka dhiman. weli waxaan ka xumahay miisaaniyadaha aan ku shaqaynayno oo weliba kuwa horumarinta inayn ahayn miisaaniyad dowladda Puntland leedahay oo inta badan ay ku yimaadaan mucaawano iyo kabid miisaaniyadeed ee naga soo gaarta adduunka. waxaa socda dadaal badan oo dadka qaybtiisa ay wadaan oo diidan nidaamkan dawliga ah inuu noqdo nidaam federaali ah. waxaan ka xumahay, waa laga yaabaa mararka qaarkood caadifadda inayna qaado, laakiin dowladdii hadda tan ka horreysay caqabadaha hadda muqdisho ka jira ee ku saabsan oo aad maqasheen qaybsiga kabka caalamku soo diray, waxyaabaha u waaweyn oo caqabadda ku noqda waxay structure-kii dalka loo dejiyey, shuruuc aan la iswaafaqsanayn oo la ansixiyey, qorshayaal aan la jaan qaadi karin nidaamka dimuqraadiga iyo nidaamka federaalaasimka oo la rabo in la practice gareeyo. dadku inta badan waxay arkaan waxa guud iyo waxa facebooka laga sheego. suuragal maaha ninaan xog hayn war uu sheegay inay bulshadu ay ka dhigato masdar ay go'aanada ku qaato. waxaan u baahannahay dadka xogogaalka ah, dadka xogogaalka ee dowladda u shaqeeya ee civil servant-iga ah, wax walba intay meelaha soo istaagaan kuma hadli karaan. laakiin dadka ururada iyo siyaasadda ka shaqeeya ee golayaasha waxaa la rabaa inaad intaad xogogaal noqotaan, xogtaas inaad u soo bandhigtaan bulshadiinna oo la wadaagtaan. waxaan u baahannahay in si saxa dalkan loo jiheeyo, danihiisa laga hormariyo danta gaarka ah, si dhab ah loo xisaabtamo xaggee mustaqbalka ummaddan aan u wadnaa. haddii qof walba uu dantiisa ka shaqeeyo, inta halka fadhida maanta ma wada joogteen meeshaan, maxaa yeele nin walba dan gaar u leeyahay danihiisu qabsan lahaa. waxa halka aan wada fadhinaa waa dan caama oo aan rabno inaan ka wada shaqeyno. dowladnimaduna waa taas, dadka dowladda u shaqeeya waxay ka shaqeeyaanna waa public office. ninkii raba dantiisa inuu ka shaqeeyo oo uu yidhaahdo maanta shirka kama soo qaybgeli karo, dukaankaygii baa ii furan ama hawshaydii baan wataa, dabcan xaq buu u leeyahay. waa nin goostay inuu private iyo danihiisa ka shaqeeyo. dadka raba inay shaqaystaan ayaa anagu rabnaa inaan u shaqeyno, oo amnigooda ka shaqeyno, oo caafimaadkooda ka shaqeyno, oo horumarkooda ka shaqeyno. qofkuna isagaa iskale joyceka meesha uu rabo inuu ka shaqeeyo. waxaan ka digayaa dadka dowladda u soo gala inay ka shaqaystaan. waxaan aada uga digayaa dadka ku jira hay-adaha dowladda ay raba inay iyagu ka shaqaystaan. ninkii raba inuu isagu shaqaysto, hay-adaha dowladda bannaanka ha uga baxo, danihiisa ha qabsado, lagu ceebeyn maayo. laakiin ummadda danaheeda iyo dhaqaalaheeda
iyo awooddeeda in lagu takrifalo suuragal noqon mayso waxaan isleeyahay marxalado adag oo dalkan ahmiyad ka weyn ahmiyadahaas ay haysatay ayaan soo marnay oo waqti iga qaybtiis annagoo u jeedno waxyaabo badan indhaha ka qabsanaynay maadaama marxalad adag aan ku jirnay laakiin waxaan rabaa inaan hoos u fiirino hay-adaha dowladda iyo siday u shaqaynayaan iyo dalkan waxyaabaha xeerarkiisa iyo qawaaniintiisa inay si saxa inay u fulaan inay muhiim tahay waxaan ka xumahay bulshada annaga naga sugaysa badbaadada oo muddada badan ay haysatay duruufaha oo markay duruufo meel ka jirto waxaa ka abuurma dhaqanno aan ku salaysnayn shuruuc iyo qawaaniin oo ay adag tahay inay survival inay ku noolaadaan maan si kale inay u noolaan waxaa ka soo baxa practice ama fulin aan mararka qaarkood laa'iq u ahayn bulshada dhaqanka noocaasa puntland oo laga sugaayay kuwa dhiban inay dhibka ka saarto inay iyada dhibkaasi uu ku dambeeyo horta waa nasiib xumo waana ka digaya puntland waxaa la rabaa inay road model u noqoto maamulada dalka ka jira state walba oo dalka laga dhisay halkay waxay usoo doontaan inay ka qaataan khibradda inay ka qaataan habka dowlad dhiska shuruucaha siyaasadaha dalka lagu maamulo 24 sano ayay puntland runtii waxay soo maamuleysay meel heer wanaagsanna way soo gaarto aan uga mahad celinayaa dadkii soo dhabar adeega ee shaqooyinka ka soo qabtay inta yar uga dambayso hay-adaha dowladda waxaan ka xumahay jiil badan oo dhalinyaro ah oo cusub oo xoogga aan rabno inaan annaga tawdiifino oon hawsha gelinno ah inay la jaan qaadeen xilli Soomaaliya ay wareersan tahay oo xukuumadihii kala dambeeyay ee Muqdisho ka dhismaayay iyo Amisom iyo balaayo iyo xalane iyo gaala timid iyo wax isdhex galay oo iyaga naftirkooda dalka inay wax u qabtaan aan danahooda ahayn in iyagu ka shaqeystaan u yimid ku tababartay in ay mararka qaarkood dhaqanka noocaas oo degdeg ah oo dalkeena soo gal waa halis aan ka digayo jiilka dhalinyaradan aan uga digayo waxa aan wadnaa annagu waxa weeye Puntland waxa ay wado waxa weeye hayaan dheer oo la rabo dadkeedana inay ku badbaadiso Soomaaliya inay ku badbaadiso haddii annaga aan ku fashilano Soomaaliya waxa uma qaban karno waxaan u baahannahay mar walba maamul wanaagga iyo dowladnimo wanaagga iyo horumarku inuu noqdo wax la taaban karo dalkan ka hana qaada waa bin aadan dadku waa la isku daydaa laakiin waxaa mar walba ku talinaya maadaama deganaansho iyo taariikh fog oo maamul iyo isxukun iyo mid hadda cusub oo 24 sano aan leenahay dadka wax saameeyay inaan noqono dadka la saameeyay inaan noqonin taladayda koowaad waa midaas waxaan rajaynayaa cid kasta oo ra'yigaas ka duwan ku fakaraysay inay dib u xisaabtanto aqliga la sheekaysato waxa loo shaqeynayo oo loo ordayo waa dalkan iyo dadkan horumarkiisa taariikhduna way qormi doontaa 100 sano ka hor wixii dhacayaan maanta ka sheekeynayna waxa maanta aan haynana 100 sano soo socota laga sheekeyn doonaa marka dadka siyaasadda ku jira waxaan kula talinayaa taariikhda iyo naga xumaanin taariikh wanaagsan aan uga tagno bulshadeena deegaankeena iyo dadkeena aan uga tagno fariinta ugu horeysa aan u dirayo hay-adaha dawladda iyo guddiga doorashooyinka waxa weeye inay u diyaar garoobaan degmooyinka haray doorashadooda hay-adaha dawladda ay arrimahaas khusayso oo ugu muhiimsan yihiin amniga iyo arrimaha gudaha in ay diyaar garow xoog leh u sameeyaan sidii degmooyinkaas ay u horgelin lahaayeen guddiga doorashada waan ugu hambaleynayaa runtii in ay gaareen inay ka mid noqdaan markii la arkay inay ku guuleysteen 3 degmo oo hufan inay ka mid noqdaan korjoogtooyinka wadamada Yurub doorashooyinka dhacay runtii sharaf weyn ayay u tahay guddigaas guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland waa tallaabo horumar ah oo u baahan in wax laga daydo waxaan rajaynayaa golayaashan hadda la doortana iyaguna inay heli doonaan inay tagaan oo soo arkaan khibradaha golayaasha kale caalamka ka jira iyo sida u shaqeeyaan oo tababarkooda uu noqon tababar gudaha maxaa yeelay inta gudaha waa intii basic ahayd laakiin waxaan u baahannahay inay helaan tababar ay indhahooda ku soo arkaan sida ay u shaqeeyaan
dowladaha hoose si ay khibrad intaan waafi ah uga soo qaataan muddaxileedka ay joogaan ay la yimaadaan howlkarnimo ka duwan kii horeeto iyadana insha allah inaan ka shaqeynaan rajaynayna haddii ilaahay waxaan fariin u dirayaa dadweynaha reer Puntland bilowga dimuqraadiyaddan la mahadiyey oo runtii mararka la tartamaya xasaasiyad ayay leedahay tartan ay leedahay waa dabeecad meel walba ka jirta laakiin aan dareemayo inay muddo yar uga gudubtay oo isdhexgal iyo wada shaqayn natiijooyin ka soo baxay ay abuurtay oo mar dhow aan rajaynayo in la helo 3 xisbi oo marka ay danta state-ka tahay isku aragti ka ah marka ay tahay tartanka iyo waxqabadkana mashaariic iyo qorshayaal kala duwan la yimaada oo dadka fursad u helaan cidda ay u arkaan inay u shaqeyso xilligaas maxaa yeelay urur walba marxalad buu ku habboon yahay aragtidiisa siyaasadeed iyo waxqabadka uu rabo inuu soo bandhigo mid ka fiican ma jiri doono haddii ilaahay inaan gaarno oo la helo sida dastuurkeenna iyo nidaamkeenna xeerarkeenna sharciyadu u dhigayo in la helo xisbiyo dadkan danahooda ka shaqeeya oo iyagu ay noqdaan cidda siyaasiyan u matali doonto ayna ku wada jiraan dhammaan degmooyinka iyo gobollada iyo bulshooyinka qaybihiisa kala duwan ee deegaanka Puntland ay u dhameystiran yihiin 3 urur ama ha u qaybsanaadaan ama mid walba ha isugu tagaan siday u samaysan doonaan iyo jirtaan laakiin waxaan rabnaa ururadaas inay u muuqdaan ururo dhammaan deegaanada sida nidaamku ku yaalo urur kasta waa inuu ku leeyahay ugu yaraan 6 degmo xafiisyo iyo taageerayaal iyo sida ay ku soo baxeen hadda inay ka dhabeeyaan fariintaas aad baan u rajaynayaa bulshadu inay qayb weyn ka qaadato sidii doorashooyinkaas u hirgeli lahaayeen si nabadgelyo ah oo hufan kana fogaadaan dadka dacaayadda ku dhex wada oo rabo inaan horumarkooda laga shaqeyn waxa lagu tartamayo waa aayatiinka ummaddiina iyo dhallinyaradiina iyo mustaqbalkiina iyo taladiina inaad qayb ka yeelataan runtii khibradayda siyaasadeed ee Puntland 3 sano aan joogay iyo aragtida muddadii aan federaalka joogay soo baxaysay waxaan qanaaco ku qabaa koox yar oo iyagu iswadata inay dal iyo dad hogaamin karin waxaan u baahannahay si waasica tala iyo aragti siyaasadeed oo baahsan oo ku salaysan merit iyo waxqabad aan ku salaysnayn jeclaysi iyo eexaysi haddaynan taas helin waxaa halis ku jirta jiritaankeenna waxaa halis ku jirta inaan sii ahaano bulsho nool oo degaan cayiman ku nool waxaa halis ugu jirnaa dalka Soomaaliyeed inuu kala qaybsan iyo burbur uu ku dambeeyo koox awood kasta leh waad garan kartaanoo kooxihiina soo maray ayaa nooga filan kooxihii qabaa'ilka ay xoogga badnaa ee estu wada muujinayay waan garan karnaa meesha ku dambeeyeen kooxihii xoogga badnaa ee urur diimeedyada magacooda huwanaa ay u dambeeyaan al-shabaab waa u jeednaa meesha ay ku dambeeyaan kooxo kaleeto oo hadda curdina oo dhashay waxa ay qaban karaan waa malayn karnaa maxaa yeelay labadii faktor ee dadka Soomaaliyeed ugu saameynta badnaa labadiiba waa soo tijaabinay ururo kooxo salkoodu qabiil yahay warlord bay isku bedeleen danahooda inay ka shaqeeyaan bay isu bedeleen inay isdhaxlaan bay isku dambeeyeen natiijadii ku dambeysayna waa ogeen kooxihii diimaha oo al-shabaab hadda u dambayso oo xukunka iyo xoolaha waynu arkaynaa maanta meesha ay marayaan iyo siday u fakarayaan inay horumarka la dagaalamaan in cid kastoo maya tiraahda ay ka hor yimaadaan oo dilaan oo xasuuqaan waxaan hambalyo u dirayaa deegaanada runtii gartay inay cadowgaas ka qabtaan oo kacdoonka oo ka bilowday waxaase ka digayaa kacdoon aan qorshaysnayn inuu nagu celiyo kooxihii aan soo dhaafnoo kaleeto marka waxaan rajaynayaa kacdoonka bulshada in dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo deegaanadaas inay si dowladnimo ah u maamulaan oo ka faa'iideystaan kacdoonka dadweynaha iyo daroonkooda inay iska qaadaan dulliga ah
oo iyagu ay hoggaamiyaan oo u hoggaamiyaan sida saxda ah si isbeddelka dhaca uusan u saamayn waad ogtihiin kooxihii qabaa'ilka markii ay ka saaraan oo la kiciyey ee reer ka saaraan oo meesha tagaan iyagaa reerkii ay ka saareen uga darnaaday maxaa yeelay waa kooxo kacdoon lagu keenay oo aan disciblin lahayn marka waan rajaynayaa nidaamka curdinka ee dowladnimada aan haysanno oo meelaha badan guulaha lagu gaaray inay ciidamada dowladda iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay hoggaamiyaan kacdoonka bulshada ayaa iyadana fariintaas iga ah si loo helo xasilooni ka duwan midda hadda aan haysanno fariintayda saddexaad waxaan u dirayaa hay-adaha iyo ururada iyo dowladaha Soomaaliya caawiya waxaa muddo badan dowladahaasi ay ku celcelin jireen dad danahooda u shaqaysanaya oo nidaam guracan ku yimid waxa aan tarayno suuragal maahane nidaam dimuqraadiyo dadka wada matala hala aado doodaas siyaasadeed 30 sano ama 20 sano u dambeysay aad bay geeyga Soomaaliyeed uga jirtay waxaan leenahay maanta Puntland wadadaas ay haysaa tijaabo fiican bay haysaa diyaar bay u tahay inay arrimahaas hore u sii qaado waan iniga mahad celinaynaa ilaa hadda ama saddexdii degmo hore ha noqoto ama hadda iyo diyaar garowga ha noqoto dadaalka aad muujiseen oo hadda uu Muuse Ducaale oo matalay halka uu ka sheegay laakiin waxaan u baahannahay inaad xoojinta aad wadeen mid ka ballaaran oo xaqiijisa arrintaas mashruucaas dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin aad gacanta ku siinaysaan inaad ka dhabaysaan oo garab iyo gaashaan la istaagtaan guddiga doorashooyinka iyo hay-adaha kale ka shaqeynaya iyo ururada naftirkooda oo u baahan iyaga naftirkooda khibradooda iyo aqoontooda in kor loo qaado laga caawiyo meelaha qaybtood si ay u noqdaan ururo awood u leh inay shaqadooda qabsadaan maadaama bulshadeenu ay tahay bulsho arrimahaas ku cusub ay adag tahay inay dhaqaale iyo fundraising bulshada ka helaan ilaa inta ay ka baranayaan marka waxaan rabnaa in la gaarsiiyo ururo ee gaari kara tartankaas dhamaysan kara xisbiyada soo baxa ruuxadooda gacan la siiyo ilaa ay noqon doonaan bulsho Soomaaliyeed oo iyada isku filan fariintayda u dambaysa waxaan u dirayaa ururada siyaasiga ah ee Puntland ee sagaalka ah runtii wuxuu ahaa go'aan geesinimo leh madaxdii ururada siyaasadeed abaabulay ka soo baxay kriteeriyadii ama habkii laga rabay inay urur ku noqdaan tartankii saddexda degmo galay muujiyay doonis iyo tartan xoog leh oo naf iyo maalba u huray waxaan rajaynayaa inay arrintaas marxaladda tan inay dhab ka ahayn waxa la rabaa doorashada dambe in lagu arko doorashadii la soo dhaafay waxyaabo badan bay huwaneed oo halda aan ka sheegayn waxaa kula cadfanaa doorashadii xamar ka socotay oo si u saameysay dareenno kale oo siyaasadeed baa ku dhex jiray waxaan u baahannahay midkii xaqiiqiga ah maanta inuu soo baxo ururadaas kaalintii laga rabay hadda ka soo baxaan kana waantoobaan wixii khaladaad ahaayoo la soo galay waxaan rabaa kolley doodaha iyo shuruucda ururadu yeeshaan oo la mariyo golayaasha dowladda ay noqon doontaa in dhaqanka tartanka la ilaaliyo inay muhiim tahay waxyaabaha ka reeban in si fiican loogu sharxo ururada in guddiga doorashadu hadda khibrad buu u leeyahay wixii xadgudub sharci ah uu sameyn karo urur kasta marka hore looga diido marka dambena lagula xisaabtamo waxyaabahaas oo dhan waxyaabahan hor yaalla waxaan rajaynayaa oo hadalkay ku soo gabagabeynayaa ninkii dadkan horumarkiisa raba taariikhdii quruxda badnayd ay lahaayeen raba inay sii wadaan ha ka waantoobaan in ay xukunka ku raadiyaan si guracan dowladdan aan mas-uulka ka ahay madaxda ka ahay madaxweynaha ka ahay waxaan diyaar u nahay tartan shariifa oo bannaanka yaalla ninkii ku fakaraya inuu xoog wax ku raadiyo ninkii ku fakaraya qabyaalad inuu wax ku raadiyo ninkii ku fakaraya dacaayad iyo dad kale inuu wax ku raadiyo ninkii ku fakaraya dadkii shalay Puntland la dagaalamay ee burburinayay ee meelaha kala jiray inay maciin ka dhigtaan intaasba waa iga talay ka digtoonaada si memberkan ah waan igala talinaya Puntland waa waaraysaa waa jiraysaa waa joogaysaa taariikhduna waa qormaysaa dadkeeduna horena uma dhicin
haddana dhici mayso inay xadgudub aqbalaan mar walba madaxda Puntland joogta waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan waxa weeye karaamada iyo sharafta dadka Puntland ay ilaaliyaan wixii aanu cuntamin inay dhahaan maya wixii dadkan dantiisa inay noqdaan kuwa ugu horeeya inaysan noqon dad la iibsan karo inaysan noqon danahooda ka shaqeeyo waxaan u baahannahay aragtidaas waxaan anigu goobjoog u ahaa oo 3 guri iska soo horjeeda imaaraadku oo deganeen madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo Cadde iyo guri aan deganaa waa iska soo horjeedaan 3 guri iska soo horjeedahay noloshii markii ay ka tageen xukunka ay ku noolaayeen waan arki jiray waxay ahaayeen dadkooda u soo shaqeeya dad ka shaqeysta ma ahayn taariikhdaas marka lagu xadfo Suldaan Maxamuud Cali Shire iyo Boqor Cismaan iyo Suldaan Kennedy iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo kulli wax walba intii loo ballan qaaday coloniskii markaa jira ma yiri waxaan u baahannahay dadkan karaamadooda iyo sharaftooda in la ilaaliyo taariikhdoodana la qoro cid kastoo diidan baaqi bay ahaanaysaa dadka isticmaalkii reer galbeedka xilliga awoodda badnaa ka diiday wax khaldan cid kale oo laga yeelayo ma jirto kolle inta aan joogo marna suuroomayso taariikh khaldan inaan ka tago wax dadkan aan dan u ahayna inaan aqbalno ma suuroomayso marka waxaan rajaynayaa waxa danta ku jirta aan ka wada shaqeyno saasaa danteena iyo jiritaankeena ku jiraysaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullahi